waxa haddaba isweydiin mudan dadka narcissistiga ah inay ku xanuujinayaan inay ku dhibayaan miyay ogyihiin taasa su'aal ah su'aashaas oo la isoo weydiiyey dhageystayaasha la socda Mastering Power Within weliba markaan ka hadlayay playlistiga oo ku jira Mastering Power Within oo ka hadlaya astaamaha lagu garto dadka narcissistiga ah iyo dhibaatada ay dadka u geystaan iyo dad badan oo aanan ka warqabin in la nool yihiin dad narcissistic ah soo haddaba narcissist anagoo aan ku micneyna in ay tahay dadka aan damqashada lahayn oo aanan dareemin waayo qof kasta Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman wa naxariista yani naxariista dhana dadka ka maqan soo dadka haddaba miyay ogyihiin miyayse kala jecel yihiin wada ina xanuunka ay kugu sameeyeen dhibaatada ay ku dhibaateeyeen in ay ku daqnisay inaysan ku daqnin haddaba mid kamid aan ku idin sheegaa waxaa jiro game ay ciyaaraan dadka narcissista ah oo yani dadka dhibaateeya astaamooyinka badan haddii aad doonaysid inaad ma u daawatid videoyadeeda hore dib u raac waxaa jiro wax ay ciyaaraan game la yiraahdo oo ah inay acting sameeyaan inay hilmaameen يعني waxay iska dhigaan qof memory loss ku dhacay oo yani xasuustii ka tirtirmatay waxa laga yaabaa inaan balan isu dhigataan ama balan ku dhigaan dadka caadiga ah oo aan narcissistiga ahayn markuu qofka balan u dhigto oo for example kale uu yiraahdo lacagtasan ku siin doonaa ama meeshaas la aadi doonaa waqtiga duruuf haddii ka hor timaado waa ilaa hami qofka uu leeyahay normal ahaan caadiyan ahaan qofka hami uu leeyahay labada qof oo isla nool hamigaas qofku waxa laga yaabaa inuu jawiga isbedelo ama dhaqaalihii isbedelaan ama qofkan kale hamigiis uu ka yaraado qofka kale inuu imaado waxa laga yaabaa confrontation la sameyn karo hadduu dhaho waxaanad iga ballan qaaday ee see wax u jiraan qofka caadiga oo narcissistiga ahayn wuu qiranaya wuxuu leeyahay I'm so sorry waxaas waa kaa ballan qaaday laakiin tabarteedii ma haayo ama timekeedii uma u helin ama lacagtan ku tashanaya ma haysto taas ayay dhahan waa qofka caadiga oo qofka kale dareemayo disappointment ka ilaalinayo waayo xanuunkaas uu qofka kale xanuujinayo ama qofkaas kale yani uu dareemayo in qofkan uu ballanta uga baxay ayaa la danqanaysa oo qofka caadiga aan ka hadlay aniga adigu kale oo caadi ahaan aan ka hadlayno laakiin qofka narcissistiga ah waxay ciyaaraan ciyaar la yiraahdo memory loss wayna ogyihiin laakiin waxay memory losskaas gameka ugu ciyaarayaan qofka kale oo imaanaya wuxuu leeyahay kale for example soo adigii hebloy ama hebelow maalinka waxa iga ballan qaaday waqtigiiya soo dhawaaday see wax u jiraan intuu saa u fiiriyo wuxuu dhahaa I don't remember adiga serious loo qaatay ani waxaas waxba ila ma hadal aan dhaw marna uma leeso maxaa ka soo qaaday hadalkaas subhanallah so that is the narcissist ciyaaraan waay haddaba xanuunkaas ay xanuujinayaan iyo maaragtay gamekaas ay memory loss ku ciyaarayaan maxay ka helaan what is the benefit for them waayo qof markaad qof walaal xanuujisid oo aad dareentid oo daqnatid intaad dib u noqotid cafin weydiisani oo inaad dib u noqotid waxaad dareemaysaa maxaa la yiraahdaa inaad yani remorse dareentid waayo wallahi subhanallah waxaa isoo dhacay email tiro badan dad badan oo yani ku dhawaataysan topican aan ka hadlay narcissism dad badan ayaa guryahoodii ku kala dumay dad badan ayaa yani dhibaato dadka waxay u arkaan qofka guriga ku dumay laakiin qofka ku waalan lahaa ama xanuun ku qaadi lahaa ama dhibaato weyn dada shaqo dhan looga soo ceeriyay shaqooyinka qaar subhanallah oo aan haysan karin haddaba anoo dib u noqon doono narcissistiga dhibaatada ay dadku ku hayaan yani dadka ay u hantigaraystaan waayo waxay ku nool yihiin farxadoodii dhan ay tahayba ay niyadooda ugu dhismataa oo yani ay ku dareemaan farxad ahaan markii qofka la dhibaan markii ay ayaga boss noqdaan sida hadda grandiose ma aragta qofka ah way kala yihiin narcissist grandiose jiro covid narcissist waa midka qofka yani qarsoon oo wax walba gudaha ka dareemayo oo yani uu ku qabo ku muujinaynin laakiin jaakad qurux badan oo gentleman ku soo xirta oo the lady of the year ku soo xirata oo dadka dhan ay respect siiyaan ama yani loo arko qof aamusan oo degan laakiin gudaha different ka ah oo maanta dhan yuusaayo oo qofka yani dambigiisa qof kale dambi qofka saarayo oo yani wax walba saan loo qaado dhinac kale u arkayo laakiin kan xanuunka badan waa midka gameka ciyaara oo memory qofka maaragta iska dhiga inuu xasuustaas lahayn haddaba waxaan dareemi karaa haddaad videogan daawanaysid waxaan waa common sense waxa idinkala hadlayo yes it's a psychological illness waaye dadka qaba narcissist laakiin
qof kastoo ibni aadana once aa ogaatay qofkaa la nooshaa inuu categorigaas leeyahay ama uu noocaas yahay waxaad bilaabaysaa in aad how to live with them yani saa kula noolaan lahayd nolosha sida naftaada protect ugu sameyn lahayd oo adiga aadan ugu xanuunsan psychologically waayo dadkan ma ahan qofka markaad ka filanaysid isbedel oo aad markasta leedahay qofkan jawigiisa waa saan beri jawiga kale u bedelmi doonaa saas waa saan yani this is doesn't work especially dadka friendshipka islam dadka isla shaqeeya so hadda waxaan ku leeyahay haddii aad isku aragtay qof inuu memory loss ku ciyaarayo memory kaada la dhahaa oo uu ku dhahayo kale I don't care yani you know waxaan maxaa u qaadata adiguna niyadda aad waxaa u gashatay subxaanallah zaa'id inuu qofkaa ballanta ku oofin doono ama uba qofkaa ballanta kaa qaaday ay ku tiraahday oo kale yes that day and that day we're gonna do this that day and that day we're gonna do this waqtigii markuu soo dhawaaday maalmo ka dhimaya adigana himiladaada ay sii kacday oo qofkaasna uusan ku tusinin xitaa inuu wixii ballantii uu kaa qaaday ee tahay wax macquula yani xitaa hadduu ku dhaho qofka yes waan kaa qaaday laakiin inaan kuu sheego aan wixii samayn karin waa ilaaway waa qofka normalka ah like qofka narcissist ah ka filanin intuu ku fiiri wuxuu ku leeyahay what are you talking about waxaan adaa madaxa gashatay maybe waa la rabtaa maybe there is something going on in your life waxaan waxba kama jiro so haddaba taa haddii ay jirto be careful noloshaada waxaad dib ugu noqotaa oo dib u fiirisaa qofkan dhaqanshana la'aanta ah it's nothing to do with you adiga ma ahan ayagaa leh psychological issue so haddaba so adi naftaada uga badbaadisid filasho ha ka filanin memory card haddii ku ciyaaraana don't feel hurt gadaal inta u noqotid candhuufta laqdid waxaa ku tiraahdaa I get it it's okay so be careful assalamu alaikum